Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa mar kale muuqaal cusub ku soo dhawow BRD Productions. Muuqaalkan waxa aan kaga warramaynaa saddex waxyaabood oo aad ka adeegsan karto Facebook-gaaga ama aadan ka ogeynba. Saddexdan adeeg ee markaas Facebook ugu jira runtii waa saddex adeeg oo markaa midkood ka yaabin doono labada kalena waa iska normal balse laakiin waxaad u baahan tahay oo markaas aad ka faa'iideysan karto. saddexdan adeeg Facebook-gaaga ayay ku jiraan markastana runtii waa wax daruuri ah oo aad u baahan karto waqti kasta. bal haddaba saddexdan adeeg baan eegi doonaa waxa ay yihiin. saddexdan adeeg waxa weeyaan marka ugu horeysa waxaad soo furanaysaa Facebook-gaaga ama computer-ka ka isticmaal ama mobile-kaba. Marka Facebook ayaan soo furayaa. Facebook markaan soo furayo qaabkan igu soo baxo waxaan tagi doonaa saddex falaadhada dhinacan kadibna waxaan sii dooran doonaa settings and privacy halka ay ku qoran tahay aan sii xulan doonaa. settings baan ka sii xulan doonaa marka adeegga ugu horeeya ama midka ugu horeeya markaas aan halkan ka eegno waxa weeyaan waxa la yiraahdaa download your information in xogta Facebook-gaaga kugu jirta aad markaas dhamaanteed la degi karto. Tusaale ahaan hadda hadii aan ku dulufto download your information aan ku dulufto qaybtan waxa markaa uu ku soo dhigayaa dhammaan xogta Facebook-gaaga ku jirta, message-yada ha ahaadeen, posts-ka, pages-ka, polls-ka, events-ka, gaming-ka, places-ka, comment-yada, reactions-ka, stories-ka, dhammaan everything aad ku isticmaashay Facebook-gaaga oo halkan ku jira kaliya file baad ka samaysan kartaa. file-kaana meel baad dhigan kartaa حتى Facebook-gaaga hadii laga hado ama aad markaas deactivate gareyso ama delete gareyso ama aad iska wadaysaba xogtan waad adeegsan kartaa. Tusaale hadda hadii halkan eego all of my data ayaa ku qoran dhammaan daatada Facebook-gaaga ku jirta gabigood waa file baad ka samayn kartaa. Hadii aan date range iraadana waxa markaas aan samayn karaa in taariikhda xilliga ka soo bilow xilligana soo gaarsiinta u dhaxaysa aan datadooda u baahanahay saasaad u kala dhigi kartaa. Marka all of my data hadii aad tiraahdo format-ka file-ka aad ka dhigaysaa halkan ayuu kugu qoran yahay HTML ama JSON labadaas aad ka dhigi kartaa PDF ama markaas document ama mid kale ma noqon karayo oo inta labadaas aad isticmaali kartaa. Inta badan HTML isticmaal way iska fududahay inaad markaas meelaha qaar kood aad u adeegsato ama aad ku furi karto faylasha qaar kood media quality-gana high ayaad ka dhigi doontaa. kadibna create file baan oranayaa. create file markaan iraahdo halkan waxa markaas uu ii soo saarayaa faylashan halkan igu qoran waa inta halkan igu qoran ama xogtan halkan igu qoran dhamaantood waa pending. waxa aan sameeyay copy baan markaas ka sameeyay waa afaaliyay balwan copysan karaaba ka dhigantay kan mar hore ayaan sameeyay oo February ayaan bilaabay kan 23 August waa markaas waqtigan aan hadda joogno waa pending. haddaba sida u dhuli gareysato back baan ka oranayaa qaybtan halkan ka hooseysa transfer a copy of your information ay ku qoran tahay ayaan ku dulfanayaa si aad markaasi meel aad hubta aad ugu transfer gareyn karto ama aad markaasi ugu shuban karto. next baan leeyahay kadibna halkan ayuu ku soo dhigayaa step markaasi saddex markaasi afar talaabo ayaad sameyn doontaa. afarta talaabo markaad dhamaysto halka aad doorato ayuu kugu shubayaa. Tusaale WordPress, Blogger, QFR, Google Calendar, Dropbox, Google Photos, Google Docs midkaad jeceshahay ku shuban kartaa. Tusaale ahaan Google Documents ayaan dooranayaa halkan waxaan ka dooranayaa all your posts halka ku qoran tahay all your notes halka ku qoran tahay next baan oranayaa. kadibna connect baan leeyahay. connect markaan iraahdo hadda waxa uu igu connect gareynayaa Google Documents in markaas aan sign gareeyo Facebook-gaaga kadibna datadiyo idil oo halka ay ugu shubo kadibna aad si file ahaan u isticmaali kartaa ama aad u adeegsan karto. tusaale halkan hadii aan geliyo Facebook-ga Gmail-ka aan ku gali jiray ayaan gelin doonaa kadibna next ayaan leeyahay. next baan oranayaa waxaan gelinayaa markaas si furahan ku isticmaalo Facebook-ga. kadib markaan geliyo next baan leeyahay. next markaan iraahdo waxa aad sugaysaa inta ku saanan gareynayo Gmail-ka aad halkan gelisay two step verification ma goxran halkan yes baan oran doonaa si markaas uu igu aqbalo. yes ayaan dooran doonaa.
gmailkaaga haddii uu two step verification kugu xidhan yahay way adag tahay sida loo jabsadaa. haddii uusan kugu xidhnayn muuqaalo hore aan ka sameynay ayaa jira, kuwaasi markaasi ayaad soo daawan doontaa. kadib marka aan sign in garay ama markaasi aan aqbalo in gmailkan la dhex galo, qaabkan ayuu soo saaray. hadana waxaan leeyahay in markaasi aan doorto mid intan halkan igu qoran. haddii aan Google Drive ka doorto, kan kalena aan doorto, saddexdaba markaa access labadaas access bay ku siinayaan in fileka aad samaysay hadii doole markaasi edit ama wax lamid ah aad ku samayn karto. continue baan leeyahay markaasi soo igu soo bilaabo confirm transfer. saas in la data loogu transfer gareeyo ayaad markaasi aqbalaysaa. waa talaabadii afraad. markaa confirm baan leeyahay passwordka Facebook-gaaga aad gelin doontaa markaasi. continue baan leeyahay. sidaas ayaa laygu markaasi transfer gareeyay. hadda way socotaa, waan kala joojin karaa markaasi. adeega halkaas ayadoo adeegsan kartaa in markaasi xogta Facebook-gaaga kugu jirta aad fileka ka samaysan karto, kadibna aad markaasi gmail-kaaga ku shuban karto oo xilliga doonto adeegsan karto. waxaan eegi doonaa adeega labaad. adeega labaad waxa la yiraahdaa markaasi oo halkan ayuu ku jiraa waa apps and websites. inaad kala ogaato applicationada ama website-yada Facebook-gaaga access-ka oo leen isticmaalaan ama aad gelisay ama aad ku isticmaashay adigu. waxaan imanayaa qaybtan ay ku qoran tahay apps and websites. ayaan imanayaa kadibna halkan waxaa iga soo baxaya applicationada ama website-yada aan markaasi Facebook-gayga geliyay ama markaasi aan ku sign in gareeyay ama ku sign up gareystay. Seymour baan odhanayaa waxaan application aad arkayso Facebook-gayga ku xidhan yihiin. haddii mid kamid ah aad ka shakito ama aad istiraado datadaada ayuu khalkhal ku keenaya ama dhibaato ayuu ku keeni karaa, waad ka saari kartaa. tusaale ahaan inta active-ka ah halkan iga soo saaraya. labadaas imika waa active Facebook-gayga waan ku isticmaali karaa, laakiin intan expired ay ku qoran tahay date-koodu uu dhamaaday, wax access-na Facebook-gayga ma laha maadaama aan markaasi ay waqti hore ahaayeen 20 ama 20 xilligaas ahaayeen. Facebook-gayga waan ka bedelay password-ka ama waxyaabahaas aan ku sameeyay, marka application-yada aad u isticmaashay way ka baxayaan meesha. haddaba sidaan uga saaro intan meesha igu jirta, hadda kan WhatsApp ku qoran yahay ayaan click siinaya. click markaan siiyo remove baan leeyahay si markaas la iga tuuro oo Facebook-gayga mar dambe aanu awood u yeelanin. remove baan leeyahay marka halkan waxa ku qoran delete posts, videos or fantastic WhatsApp posts on your timeline. application WhatsApp hadii uu wax postiya ama markaasi timeline ama muuqaala uu qaybta timeline-ka ama feedback-ka uu ku soo post gareeyay si aad iyaga u raaciso. tigtan saaraya remove baan leeyahay. remove markaan idhaahdo si automatically ayuu uga saaray application-kaasi. you removed WhatsApp from apps and websites. kuma jira halkan dhammaantood. inta halkan ku jirta si automatically ayaad uga wada saari kartaa. marka wax application Facebook-gaaga kuma xidhmi doono oo markaasi kama shaki doontid ama isma odhan doontid markaasi xogtaada ayuu xadaya ama dhibaato ayuu ku keenaya waxyaabaha saasa. dhammaantood halkan ayaad ka remove garan karaysaa. applicationada aad ku isticmaashay Facebook-gaaga remove bad wada leedahay dhammaantood si xogtaadu ay safety u noqoto markaasi amaan uga hesho. wada saasaad uga wada saari kartaa. waxaa markaasi eegi doonaa adeega saddexaad ee markaasi qaybtan Facebook-ga aad ka adeegsan karto settings-ka aad ka adeegsan karto ayaan eegi doonaa. adeegan waxaa la yiraahdaa waa midka aad ciwaanka ama title-ka markaasi ka arkayseen oo cidda dhaxli doonta Facebook-gaaga markaad geeriyooto. runtii aad baad markaasi ula yaabaysaa. qaybtan personal account information haddii aan ku dulufto qaybtan ayaa soo baxaysa account ownership and control baan dooranayaa. marka aan doorto halkan waxaa iga soo baxaya memorialization settings. decide what happens to your account after you pass away. marka dhimato kadib maxaa ku dhacaya account-kaagan yaa isticmaalaya yaa awood leh inuu galo waxyaabahaas oo dhan ayaa markaasi uu kugu soo saaraya. halkan waxaad gelin doontaa markaasi haddii aan click siiyo qof kamid ah asxaabta Facebook-gaaga ugu jira oo aad ku kalsoon tahay 100% oo aad markaasi marka aad geeriyooto aad u ogolaato in markaasi uu isticmaali karo Facebook-gaaga. bal haddaan eegno mid kamid ah doorano choose latest contact baan leeyahay. kadibna
halkan waxyaabahan uu kugu soo qorayo dhan wada akhri doontaa. Manage tribute posts on your profile which includes deciding and who can post and who can see posts, deleting posts and remove. waxyaabahaas oo dhan ayuu awood u yeelanaya qofka markaasi aad halkan soo gelisay. Request the removal of your account. in waxyaabahaas oo dhan awood u yeesho ayaad markaasi access u siinaysaa. next baan leeyahay halkan ayaan ku qori doonaa saaxiibka ama qofka aan doonayo in Facebook-iga uu awood u yeesho markaan dhinto kadib inuu adeegsado ama isticmaalo ama wax ka bedeli karo. qof baan halkan ku qori doonaa markaasi. tusaale ahaan halkan waxaan ku qorayaa waxaan halkan ku qori doonaa isoo xasuuso qof markaasi dhow aan ku kalsoonahay. haddii aan ku qoro aabahay baa haddii aan ka dhigo waa kan aabahay Facebook aabahay baa halkan ku jira Xasan Abdi Askar waa aabahay Facebookiisa kadibna Sandy baan odhanaya qoraalka halkan ku qoranaya u diraya. Hi Xasan, Facebook now lets people choose a latest contact to manage their account if something happens to them. yani waxaad markaasi go'aan ka gaari kartaa in Facebookan aad adeegsan karto ama aad waxa doonto ku samayn karto qofka Facebookan la marku geeriyoodo. Sandy baan leeyahay waan u dirayaa sidaas ayuu markaasi ugu diray. waxa markaasi uu u baahan yahay in uu aqbalo active permission qaybtan hoose hadaan aago data archive permission hadii aan aago don't allow and allow data archive permission. You can allow your latest contact to download a copy of what you have shared on Facebook. haddii aad doonayso qofkaasi in uu waxyaabahan oo dhan la degi karo ama uu awood u yeelan karo inuu isticmaalo meelo Facebook ka baxsan oo ku isticmaali karo allow baad odhan doontaa yes allow si markaasi ay waxyaabo fara badan uga fududaadaan qofkaas inuu isticmaalo Facebook-gaaga markaad geeriyoto kadib. halkan qofkan doortay imika waa aabahay adigu walaasha waad gashan kartaa saaxiibka waad gashan kartaa hooyada ama aabaha waad gashan kartaa cidii kugu dhow qaraabadaada ee Facebook le ama saaxiibka ahaado ama cid doono ahaado ee Facebook le halkan aad gashan kartaa si aad awood ugu siiso in hadhow toolo qofkaasi uu adeegsan karo Facebook-gaaga markaad geeriyoto kadib. halkan ayaad gelin doontaa hadda qofkaas ayaa ugu jira waadna ka remove garan kartaa intaad geeriyon ka hor remove baad odhan kartaa qofkan waad ku bedelan kartaa taasi waa ku fududahay markaasi. saddexdaas adeeg Facebook-gaaga ayaad adeegsan kartaa in datadaada aad download ku samayso kadibna si meel Facebook ka baxsan aad ku adeegsan karto waqtigii Facebook-gaaga aad samaysatay ilaa iyo waqtigan aad xadirkan aad joogto aad intii u dhaxaysay oo dhan adeegsan karto datadeeda. sidoo kale adeega labaadna waxa uu yahay in applicationada ama website-yada aad Facebook-gaaga ku sign gareysay ama aad ku isticmaashay aad gelisay in aad ka remove gareyn karto Facebook-gaaga oo aad ka saari karto. taasina waxay ku fududaynaysaa in datadaada iyo xogta Facebook-ka kugu jirta dhammaantood ay safety ku ahaadaan. adeega saddexaad ee markaasi aynu halkan kusoo gudbay isaga waxa weeyaan in marka aad geeriyoto kadib uu qof adeegsan karo Facebook-gaaga qofka aad halkan geliso qaybta memorization-ka aad geliso qofkaas aad u ogolaatay in marka aad geeriyoto Facebook-gaaga uu isticmaali karo qofkaasi awood wuxuu leeyahay waxyaabaha aan halkan kusoo sheegnay oo dhan in Facebook-gaaga uu ka maamulo uu awood u yeesho markaas. waa saddex adeeg oo runtii Facebook-gaaga aad ka adeegsan karto badankiina laga yaabaa inaydan ku baraarugsanayn haddii aad hore u aragtayna waa markaasi si adeegsigiisa si wacan baad ogtahay waanaad adeegsatay haddii ay kugu cusub yahay oo markaasi aadan hore u aragna ka faa'iideyso oo markaa adeegyadan isticmaal. waan soo gudbin doonaa adeegyo kale oo fara badan oo Facebook-ga ku jira markaasi oo dadka badankoodu aysan ka warhayn qaar ammaankaaga sugaya qaar adiga datadaada ku saabsan qaar adiga profile-kaaga ku saabsan waxyaabahaas oo dhan Facebook-ga uu leeyahay dhammaantoodna waan soo gudbin doonaa insha Allah. haddii aad nagu cusub tahay oo markaasi channel-ka aadan hore uga mid ahayn subscribe saar like share intaba noo raaci si markaasi waxyaabo fara badan aan u soo gudbino. haddii aad hore noola sii joogtay oo ka mid ahayd asxaabta halkan aan ku walaalanina aad iyo aad baad ugu mahadsantahay joogitaanka iyo adeegsiga markaasi channelkan YouTube-ka. halkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa saddexdan adeeg. qaybtan ayaan markaasi ku raacin doonaa oo markaasi dheeraad aan kaaga dhigi doonaa deactivation and deletion ay ku qoran tahay in Facebook-gaaga aad deactivate gareyn karto ama aad xoga ka maqnaan karto sidoo kalena aad delete account ku samayn karto. imika deactivate account iyo delete account baa halka labadan hoose ay ku qoran. kaasi waa deactivate waxa markaasi aad ka maqnaan kartaa inta aad deactivate garayso Facebook-gaaga. Deactivating or deleting your Facebook account. If you wanted to take a break from Facebook, haddii aad doonayso inaad fasax ka qaadato Facebook oo aad xogaa ka maqnaato in muddo ah, and you can deactivate your account. waa deactivate ku samayn kartaa activation ka uma deactivate ka dhigaysa yacni active ma ahaanay oo ma shaqeynayo Facebook-gaaga intaad ka maqantay wey. If you wanted to permanently delete your Facebook account, let's know. haddii aad doonayso si gabi ahaanba in aad delete oo gabagabayso Facebook-gaaga dib u dambayso
dambeysana la arki doonin delete account oranaysa dib oo dambeysana ma arki doontis when you delete your Facebook account you will not be able to markaasi retrieve the content or information you have shared on Facebook your messenger and call and all of your messages will also be deleted messengerkaaga facebookkaaga dhammaan waxa aad halka ku adeegsatay oo dhan hawada ay ka baxayaan hadii aad delete account tiraahdo waa labadaasina halkaas ay ku jiraan midkaad rabto wada adeegsan kartaa tan iyo muuqaalka dambe taas ku iman doona waxaan idinkaga tagayaa salaamu alaykum farxad iyo khayr baan isku ognahay